bulshada rayidka ee madasha fadhida iyo xaafadaha iyo bahda saxaafadda ciidanka amniga sugaya ee madaxtooyada iyo gobolka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan dabadeed waxaa sharaf ii ah in madaxweynaha dowladda Puntland uu ii idmaday inaan u adeego ummadayda reer Gaalkacyood uguna adeego maamulka degmada Gaalkacyo ama maayarka degmada Gaalkacyo aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha cusub waxa kale oo mar labaad u mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo isaguna soo jeedintaas iyo taladaas lahaa iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay waxaan rajaynaynaa aniga iyo tiimkayguba inaan ku shaqayn doono hufnaan una cadaalad samayn doono dadka degan degmada Gaalkacyo waxaan kaloo ballan qaadaynaa haddii Ilaahay idmo inaan bulshada Gaalkacyo kala shaqaynayno amniga isdhexgalka wada noolaanshaha iyo daris wadaagga aynu daris wadaagnahay walaalaheen reer Galmudug waxaan kaloo ballan qaadaynaa haddii Ilaahay idmo inaanu kicinno dakhliga degmada meesha ka sii wadno mashaariicdii maamulkii naga horeysay ay wadeen iyo shaqooyinkii mugga lahaa inaanu abuurno horumarka cusub iyo mashaariic cusub waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu arrimahaas iyo xilka adag noo fududeeyo idinkana aan ka codsanaynaa inaad garab nagu siisaan far kaliya fool ma dhaqdo ragga iyaga hadda dawladdu u soo idmatay inay shaqada sii wadaan haddii aysan odayaasha iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo bulshadu qaybaheeda kala duwan aysan nala shaqaynin wax badan oo qaban karnaa ma jirto waxaan xoojinayaa wada shaqaynta aan la leenahay ama shaqada naga dhaxaysa maamulka gobolka oo dawladda Puntland gobolka kan mas'uul uga ah annaguna inaan la shaqayno kulana shaqayno hab hufnaan ah kala dambeynta maamulkana ay ilaalino sidoo kale waxaanu ballan qaadaynaa haddii Ilaahay noo fududeeyo inaan taliska qaybta iyo saldhigyada oo aan wada shaqayn dhow leenahay shaqadayaduna ay ku xiran tahay iyagana haddii Ilaahay inaan wada shaqayn dhow la yeelano aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh